waxaa mahad iyo ammaanba mudan Allah subhanahu wa ta'ala inoo qadaray inaynu maanta jaanis iyo fursad weyn inoogu baagay inaynu helno oo iskuulka inoogu yimaado inoogu soo booqdo muftigeena weyn fadiilada Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir waynu garanayna socdaalka shalay uu soo galay xilliga sidoo kaga sugan yahay hadana waqtiga noocaas ah inoo soo huray baynu uga shukrinaa waxaan leenahay jazaaka Allahu khayr al-jazaa wa ba'd wala la yal bani aadam baynu nahay bani aadam ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala unsurka u qaabo wa unsur aqbalaya inuu tooso oo wadada xaqa u raaco iyo inuu inxiraafo labadaba aqbalaya maadaama aynu sidaan nahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga abuuray unsurka noocaas waxa qofku u baahan yahay mar walba in markaasi mawcido iyo waano la siiyo ayuu baahan yahay oo la baraarujiyo lagu toosiyo mar walba markaasi xaqa loogana digo markaasi waxyaabii xumaa kulanka aynu halkan isugu nimi maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda daayirta aba dugsigan sida quruxda badan ay u soo labisteen ay u diyaarsan yihiin ardaydiisu wiilal iyo gabdhaba sida aadaabta fiican ay u fadhiyaan Allah idin barakeeyo aqoontana Allah idin fududeeyo laba arrimood ayuun baan dardaarankayga ku soo ururin lahaa si aanu idinku badanin oo aanu idinku baahin waa aqoon iyo aadaab waxa meesha la idin keenay dhalinyaro waa in aqoonna yeelataan aadaabna yeelataan soo warkaasi ma urursanaa la idinma keenin halkan inaad lacag soo saartaan inaad shaqooyin kala gashaan inaad iska dalxiistaan oo iska dabaaldegtaan oo iska ciyaartaan oo iska qoshashaan waxaa la idin keenay inaad aqoon urursataan ayaamaha halkan joogtaan aqoontuna wax qaaliya wey in aqoon aad heshaa waa arrin weyn diintaada iyo dunyadaada labadaba adoo aqoon u yeelanaya qofka aqoonyahanka ayaka kala meeysimay ilaahay muxuu yiri subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab waxa dareemi karaysaan daayirta idinka idin laaleeg ee dooxa jooga ama meelaha xabagta ku caba ama ciyaar suuqa balada qiyaas farqiga idin dhaxeeya marka sheekaysataan wuxuu garanayaa ma jiro sidii hooyadii ku soo dhashay adiga laakiin tacab baa ku galay dadaal baa ku galay lacag baa ku gashay muallinkii iyo waalidkii iyo maamulkii baa iska kaashaday juhdi badan baa lagu bixiyay dadaal badan ma in la dayacaaba dadaalkaas soo la weelayo ma taas horta waa midka halkan u joogtaa marka haday tahay dhinaca diinta ina barataan iyo dhinaca cilmiga maadiga labadaba waa la idin dhigaa labadaba ku dadaala qodobka u horeeya ee aan idin dardaarmaya waxa weeye si uu idinku farxo maamulka iyo macallinka oo idinku farxo waalidku oo idinku farxaan ummaddu waxaynu u baahanahay qof aqoonta loo dhigayo ee Ilaahay uu fududeeyay subhanahu wa ta'ala aad u liqliqayo u qabanaya oo maskaxdiisu ay u furantay وأنا الله إذا كنت عم خسارين إن شاء الله هو اللي يكون جوليسن طبعا إذا كنا هو يكون جوليسن آمين لها أيامها هل كنت شوكتان بو مستقبل كينو كحرين ويلك أما جوانا مركا إمك أيامها وشوغن نفتي سدسات دلالة وكجامعات كوفي عنانية وكهذا وتشقة كوفي عنان دونا وكهذا معلمين ونقضة كوفي عنان دونا لكن مركا هل كنت شوكتان هداد لي إذا تو hadhowna way kula soconaysaa nuqsaantaas taa diyaar baa u tii Soomaha inaad dadaashaan wuxuu Ilaahay inoogu mana sheegtay inuu inoogu deeqay rasuul buu inoo soo diray aqoonna ina siiyay aadaabna ina siiyay marka waa aqoontii iyo aadaabtii wada socda ayuu labadaba nabigu barayaa ummadda sallallahu alayhi wasallam waa garan karaysaan dhalinyaro yar oo idinka idin leeg oo Anas ibn Malik uu kamid ahaa وقرد عبادلة اللي ورنجي لها كم لها عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس عبد الله يراس كم لها
ayuu nabigu taskiyada iyo tarbiyada siinay markaasa iyagoo yaryar bay waaweynaayeen iyagoo da'dooda ay yarta oo aan weli qaan gaarin ayay odayaasha iyo ragga waaweyn ka weynaayeen waxay xambaarsan yihiin miisaanka iyo mugga u leeyahay daraaddeed marka qadiyadda aadaabtu waa waxa aqoon-yahanka qurxiya hadduu ilmo yar yahay iyo hadduu qof weyn yahayba qofka tarbiyad leh ee taskiyad leh ee dhowrsoon dhinac walba ka dhowrsoon afkiisa iyo ishiisa iyo adinkiisa iyo uurkiisaba dhowrsoon aqoontiisu way anfacday odayaasheenii hore waxay odhan jireen markay carruurta u ducaynayaan adeer waxbaad barataa aflax iyo aadaab bay odhan jireen aflax iyo aadaab macnaha aqoonta ku aflax aadaabna allaha ku waafajiya bay leeyihin labadaasay israacin jireen macnaha haddii aad aflaxdo oo aanad aqoon aadan aadaab lahayn aflaxaagu ma jiro haddaad xisaab iyo physics iyo biology iyo ingiriish iyo waxoo doontaba xifdisanow carabida xafisanow qur-aanka xafisanow haddaanay aadaabi jirinoo qofkii ku eegaaba kula yaabayo wiil iyo gabadh mid kasta ahaw oo lagaa naxaya waxaad samaynaysa ceebtaada wax aflax la yidhaahdaaba ma jiraba ilaahay aqoontana ha kugu aflixiyo aadaabna ha ku siiyo waxaynu imanaynaa waalidka waxaa lagu xusuusanaya isagana tarbiyada tacliimtu waalidku idin siiyey ka sokow waxaa lagu xusuusanaya ilaahay ui waalidka ku xusuusta waa rabaynta uu sidaa quruxda badan idin rabaynayo guriga idinku soo rabaynayo qadiyadaasi marka aynu tarbiyad ka hadlayno cibaadada ogaada samooda tukataan dhammaanta salaadlaantu waa ceeb musiibada ugu weyn waa salaadlaanta alamkaad ku buuxsanaysa salaada laydkaad u kacaysa oo salaada subax baad tukanaysa oo duruustaad soo muraajacaynaysa iyo qur-aanka kadibna dugsigaad imanaysa waxaa ku xiga xaqa waalidka xaqiisaa ku xiga inaad noqoto samafale waalidka u samafala ducaqabe ama ducaqabto aada u maqlaya waalidka oo dhagaysanaya oo waalidku uu ku nasanayo ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما مؤمنين ilaahay waxa uu ku amaanay inay ku ducaysanayaan ilaaha ubad iyo ooriyaha iyo ehelka ishayada ay ku qabowsataan isha waalidku waxay ku qabowsanaysaa marka waalidka ka tala qaadataan aqbashaa ha khiyaameynina waalidka been ha u sheegina soo sax maaha been waligaa waalidka ha u sheegin kalsoonidu kaa qaadanaya kadibna wuu ku nacaya haddaad been u sheegto wixii doonaadaha ka dhaco hadduu doonaha ku yaryahay hadduu doonaha ku dilo runta ku dhimo sax ma tahay wuu ku jeclaanaya haddaad tidhaahdo xagaad ku maqleed bukunasaa tidhi wax kale ma jiree maanta qalad baan galo waxa iyo waxaasaa sameeyey aabbo ama hooyo wallaahi qof wanaagsan weeyaan boodhay qofkaas runbuu kuu sheegay runtaa lafteedu kugu jeclaanaya saddexaad waxa weeye dadka maskaxdaada cilmigaaga iyo caqligaaga iyo caatifadaada dhisaya qofku laba qaybood buu isugu jiraa jidhka iyo ruuxdu ka kooban yahay waalidku wuxuu soo korinayaa sida badan jidhkaaga nadaafadaada caafimaadkaaga cunnadaada hurdadaada intaasoo dhan maxay korinayaan jidhkaagii bay soo korinayaan macnaa si qofkii si fiican ugu koro cunno fiican buu ku siinaya dhar fiican buu ku gelinaya saanigu ku seexinaya uu ku daaweynaya jidhkaagii buu soo koriya mucallinka iyo maamulka dugsiga ama masaajidka kuu joogaana maxay korinayaan yaa caqligaaga iyo ruuxdaada ayay korinayaan caqligii iyo ruuxda inay kuu koraan oo ay kuu hagaagaan oo caatifadaada iyo caqligaaga iyo ruuxdaadu dhismaan jidhka ma ka muhiimsanta mise kama muhiimsana ma ka muhiimsanta waayo haddii caqligaaga iyo caatifadaada iyo ruuxdaadu daciifayiin ama aada liidato muruqyada waaweyn iyo barida weyn iyo garbaha weyn maxbay ku tarayaan haddaad xoog weyntooda iska buuran tahay laakiin aad faaruqtooda madhantahay ka war miyay waxba ku tarayaan waxba inantaasi waa iska shilista inankaasina waa iska shilista waxalla wuxuu u tarayaa ma jiro waa qolfoof laakiin hadduu qofkan yahay qof weyda oo dhuuban oo sii daciifa uu yahay laakiin uu aqoon iyo aadaab iyo cibaado xambaarsan yahay soo qof qawiya maaha waa qawi marka waxaan idiin sheegayaa qolada soo raacaysa xagga xuquuqda waxa weeyaan waa mucalimiinta wax kuu dhigaya ama masaajid ha kugu dhigaan ama dugsi ha kugu dhigaan
وآبه أما هو يدي لبادوي معلمتنا وهو يدا معلمنا وآبها إذا مركا حق بولي حق أيولي سيدو ملك جبريل رسولك حق لها رسولك أصحاب حق لها تابعين تنا أصحاب حق لها ayaa in adigana mucallinka ku soo koriyay ee ka dooxa taagan ka duway iyo sheekha wax ku baraya iyo cidda aqoon ku siinaysa iyo aadaab ruuxdaada ay korinayaan aqligaaga ay dhisayaan shakhsi qurux badan oo aqoonyahana oo aadaab leh oo qawi ka dhigaya isaguna waa aabihii ama hooyadii labaad muxuu leeyahay markaa xaq buu leeyahay sooma xaq buu isaguna leeyahay waxa loo adeecayaa oo looga tala qaadanayaa sidii waalidka oo kale imise meelood baa tarbiyada ka soo qaadataa balitriya shanta meelood gurigu waa inuu ku hagaago goob waxbarasho wanaagsan masaajidka inaanad ka fogaanin iyo goobaha cibaadada iyo muxaadaraadka iyo wacdiga iyo waanada wax wanaagsan inaad daawato iyo dad wanaagsan oo da'yara inaad la saaxiibto haddaad shantaasi ku hagaagsan yihiin ama ay shantaa iska dhisno dhalinyariya waayeel madax iyo raaciya shantaa meelood haddaynu hagaajinno bulshadeennu way noo hagaagaysaa sheekh cabdirashiid cali suufi oo nala socdaa wuxuu dadka ku waaninaya maalmahan aan arkayay markaanu la soconno waxay weydiinayaan sidaanu adigan qaarigaa sheekha qur-aanka sidaanu u xafidnaa wuxuu idhaahdaa ma qur-aankaa doonaysa inaad xafido ma inaad qiradiisa barato ma inaad ilaaliso xifdigiisa hal talun baan ku siinayaa buu odhan jiray moobaylka dan ka hadal ogow iyo tooshlaha tooshlaha sitay buu odhan jiray tooshlaha oo ama kaa yara la ydhaa dan ka hadal halowdaasoo keliya una kanun iska dhig buu odhan jiray intaad kaa sidato way iska adag tahay buu odhan jiray inaad qur-aan muraajaco badan u samayso ama si fiican u barato dhigi mayna waynu ognahay laakiin waxaynu ka qaadan doonaa oon aad iyo aad iyo aad idinku adkaynaya maamul iyo mucallin iyo dhalinyaro iyo waayeel iyo culimo iyo cuqaalba wax wanaagsan inaynu ka daawano oo internet ka gallo duruustaadii aad kala soo baxdo oo notiska aad ka qorato oo macluumaadka guud wixii aad garan weydaba aad weydiiso wax alla wixii xunna dhinacaad iska dhigto hooyooyin fiican baa la doonaya inaad noqotaa hablo dhakhtaradaahoo fiican mucallimada fiican muftiyada iyo sheekhiyo waaweyn baa laydinka rabaa hablaha haddaad diin maaha inaa culimo uun u daba fadhiisataan raga waa in qaarkiin isu diyaariyaan shareecada iyo diinta inay ku takhasusaan oo idaacadda ay noo soo fadhiistaan ay u fatwoon karaan dumarka hablow taa diyaar ma ogtiin mise dhakhtarada uun dhakhtarada iyo mucallimada diinta waxaynu doonayaa meel ka gaadhaan maalmo dhaweed waxaan arkayay dee imise hablood baa ku tartamayey 10 qiro ee qur-aanka hargeysa waa caalamka maba ka dhacdaba adduunyada maba ka dhacdaba kuwait baa dad isugu yimaadeen rag un bay ahaayeen hablo 10 qiro ku tartamaya marka waxaa la doonayaa kuwii takhasusaadka kala duwanaa weliba dhinacyada maadiga way jiraan diintana in hankaana qaadaan baynu doonaynaa oo wiilasha kula tartantaan oo takhasuskiinu meel qurayu wada noqonin laakiin waa inuu takhasusku kala duwanaadaa oo majaalaadka ama meelaha aynu uga baahannahay aqoonta maadiga iyo diiniga waa in qofku daydaya hebel baa waxaa bartay adna bara ka daaya laakiin waa inaad tidhaahdaan gaabkee bannaan bulshada ee u baahan aqoonyahan mustaqbalka meelo aan cidiba qaadan waa ina hadhow doorataan aqoonta marka jaamacadda galaysaa oo markaad aragta fakratiyada lagu yaryahay adigu kaa gal si aad hadhowto kaalin buuxis u noqoto kaasaad shaqo ku helaysa waxaa ka mid a meelaha aan idiin sheegaya dumarka takhasusaadka gaarka ah ee shareecada iyo diinta aynu aadka ugu baahannahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhegaysiga wanaagsan iyo aadaabta fiican laakiin iyuu idinka noqonin dhagaha una soo inaad dhaqan gelisaan diyaar uma hidin inaad dhaqan gelisaan waa inaad u diyaar garowdaan waana idiin soo ducaynaynaa allah idinku anfaco aadna waa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu